بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي waxaan wanaagsan dhammaan bakhyaarta sharafta xushmada iyo waliba qadarinta sayidka naga mudan ee ku xiran ama ku tahan arag media ku soo dhawaada falaqayn kooban oo aynu ku sameyn doono sanadka roobkii daay ee ballaadhna ama gugii ballaadhna ee sanadka daay oo aynu ku sameyn doono gugii ballaadhna ee sanadka daay iyo ka faa'iideysanaanta bulshada sanadka waxa daay gu ballaadhan oo sanadka waxa daay gu ballaadhan oo barwaaqo ah oo meel walba gaadhay gugaas oo kamid ah nimcooyinka Ilaahay way farabadan yihiin gugani wuxuu noqday gu ballaadhan oo iyo magaalo iyo meel kastaba gaadhay hadaba waxaan uga soconaa nimcada ballaadhan iyo roobka ballaadhan ee daay iyo sida aan looga faa'iideysanin iyo wax ku qaadashada la'aanta haysata dadkeena maadaama aynu soo marnay abaaro farabadan oo kulul oo istabahaya iyo biyo dhaan farabadan iyo booydaan farabadan iyo geedi farabadan iyo waxaan ku yiri calafka xoolaha la siiyo oo la waayay oo laga keenayo maaragtay wadamada dibadaha qaarkood ba Turkiga laga keenay qaarkood ba Itoobiya iyo laga keenay maaragtay meelo kale dadka qaar ba ilaa Suudaan ka keenay xoolaha ama calafka xoolaha la siinayo sida cawska iyo calafka xoolaha dadka qaar waxay siinayeen maaragtay cuntadii dadku cunayeen ayaa xoolaha la siin jiray abaartii oo dadka qaar ayaa karinayay raashin adag caruur ama haw kariyaan ama garow iyo galey iyo waxaas ha siiyaan ama buushaha u ridqaan oo ha siiyaan dadka qaarna waxay siinayeen xoolaha iyagoo tiinka iyo ma garanaysaa iyo garanwaaga jalowgiisa ama maaragtay dhimbiishiisa siinay waxaas oo dhan waxa kalifay waa abaarta jirta ama jirtay waxaas oo dhan waxa kalifay abaartii xilliga jirtay ay ahayd oo xoolaha wax la siiyo ayaa la lahaa hadaba iyadoo taasi jirtay oo abaartaasi jirtay oo xaalufkaasi jiray oo biyaalaantaasi jirtay oo waxaas oo dhan jireen ayaa Ilaahay maraqa ka furay gu ballaadhan oo daayay maka muddo ilaa 4 bilood ah miyiga markaad marto waa barwaaqo meel kastana waa barwaaqo caanaha iyo subaguba waa yaalaan oo waxaan ku yiri waxa ugu horeeya lagu soo dhaweynaya ama ay markaad u baxdo ama haddii aad u baxdayba ay dadka miyiga kugu soo dhaweynayaan weeyaan dadka miyiguna wadada aad u fiican xagga maaragtay dad soo dhaweynta iyo martisoorka iyo salaanta iyo qalbi furnaanta oo dadka sida dadka magaalada ma aha dad iska xaasidiin ah ama dad maaragtay aan waxba soo dhaweynayno oo aan martisoor ahayn waa Soomaalida asalka ah oo asalka Soomaalidu deemii bay ka timid magaalooyinka waale hadaba dulucdaan u soconaa sheekadeena waxa weeyaan ama falaqaynteena aan u soconaa waxa weeyaan nimcada Ilaahayna siiyo marka hore weyn ku shukrino oo niraahno alxamdulilaahi rabbil caalamiin Ilaahu waa kugu mahad marka xigtana waa in laga faa'iideysto oo qaababka looga faa'iideysanayo waxa weeyaan in maaragtay biyaha la qabsado soconayo oo maaragtay loo sameeyo meel biyo qabatina hadii taa la sameeyo waayana dhul beerasho lagu dhaqaaqo oo qof waliba intii taagiisa uu beerto oo waxaad arkaysaa seerayaal badan oo dhulalka qaar iska xiran oo waxa la daaqmayo wax kale aan ku oolin oo hadii ay ka beeri lahaayeen ma garanaysaa haruud ama galey ama garow ama wax la mid ah ay ka faa'iidi lahaayeen oo wax badan ay u bixi lahaayeen qodobka kale waxa kamid ah daawska ama dooga baxay ee dheer ee ballaadhay hadii isaga laftiisa la kaydsan lahaa ama ay kaydin lahaayeen oo ururin lahaayeen waxa loo aadi lahaa xilli maaragtay abaareedka Ilaahay abaar ma keenay laakiin hadda mar kastaba diyaar garowga waa loo baahan yahay barwaaqadaas hadii la iskaga jiro inta badan Soomaalida marka barwaaqada la iskaga jiro way iska ilaawaan waxa soo socda iyo say noqon doonta iyo ku shukriga nimcada Ilaahay siiyay wax kale ku mashquulaan dabadna sida ay u maqan yihiin ama ay wax kale ugu mashquulsan yihiin ayuun baabaartu soo gashaa dabadna hadhow wuxuu bay ku baraarugaan waa abaarey iyo nasoo caawiyay iyo waa biyo dhaanay iyo waa la guuray waa geediyay iyo dhinac kale aan u guurnoy marka bulshada meel kasto ay joogaan waxaan ku baraarujin lahaa in laga faa'iideysto barwaaqada Ilaahayna siiyay asxaabta sharafta xushmada iyo qadarinta lay oo nagala socota arag media waxaan idin leeyahay subscribe waa xaqiina like waa xaqiina share waa xaqiina ducaduna waa xaqiina magacaygu Cabdiraxmaan Rashiid barnaamijyo waaweyn ba soo socda insha Allah hadii Ilaahay ka dhigay wada socod fiican aad iyo aad baan